بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وعنا أصحابي كسو دبادة كرمال تيوب فضلنا سبسكرايب كريه كانالك يوتيوب كان كل الناس يادو لسعوته وحول بوان صادق نبرتين يوتيوب كا warbixintan waa mid aad u xiiso badan waxayna ka hadlaysaa gabdhaha ugu quruxda badan ee dhaleen madaxweynayaasha Afrika. waxaana warbixintan aan ku soo qaadan doonaa shanta gabar ee ugu qurxoon gabdhaha ee dhaleen madaxweynayaasha Afrika. waxaan ka soo bilaabi doonaa kaalinta shanaad ilaa iyo kaalinta koowaad ayaan soo bandhigi doonaa. kaalinta shanaad waxaa ku jirta Anke Gangama oo dhalay madaxweynaha Rwanda. tani waa Anke Gangama gabadha uu dhalay madaxweynaha dalka Rwanda oo ah gabadha shanaad ee ugu qurxoon gabdhaha ay dhaleen madaxweynayaasha qaaradda Afrika. da'deeduna waana 21 jir, waana gabadha kaliya ee uu dhalay madaxweynaha dalka Rwanda. kaalinta afraad ayaa waxaa soo galay Brenda Bia oo dhalay madaxweynaha Cameroon. Brenda Bia waa gabadha uu dhalay madaxweynaha dalka Cameroon, waana gabadha afraad ee loo soo xulay in ay tahay tan ugu qurxoon markii loo eego gabdhaha ay dhaleen madaxweynayaasha qaaradda Afrika. haddaba kaalinta saddexaad waxaa soo gashay Isabella dos Santos oo dhalay madaxweynaha Angola. Isabella dos Santos gabadha madaxweynaha dalka Angola, da'deedu waa 41 sano jir, caan ka ah qaaradda Afrika. kaliya ma aha inay tahay gabar qurxoon, laakiin sidoo kale waa gabar ugu taajirsan qaaradda Afrika, lacagteeda faa'iidadeeduna ay tahay 3 bilyan in ka badan. gabadha soo gashay kaalinta labaad waa Malika Bonga oo dhalay madaxweynaha Gabon. waa gabadha qiimeynta kaalinta labaad ugu jirta, waana gabadhii ugu horeysay ee uu dhalo madaxweynaha dalka Gabon, ninka lagu magacaabo Ali Bonga. waa gabar aad u qurux badan, qof walba oo la kulmana waxa uu qirayaa quruxdeeda. dhanka kale waxa ay u ololeysaa arrimaha bulshada, gaar ahaan xuquuqda haweenka. kaalinta koowaad gabadha soo gashay ee ilaa haatan sida lama filaanka ku soo gashay aad ku qurxoon ayaa waxay noqonaysaa Ngina Kenyatta, waxaana dhalay madaxweynaha dalka Kenya ee Uhuru Kenyatta. gabadhan lagu magacaabo Ngina Kenyatta waxaa dhalay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana kaalinta koowaad kaga jirta gabdhaha ugu qurxoon madaxweynayaasha qaaradda Afrika ay dhaleen. da'deeduna waa 25 jir, inta badan ka shaqeysa arrimaha bini'aadanimada. asxaabay, warbixinteeni aan ku eegeynay gabdhaha ugu quruxda badan gabdhaha ay dhaleen madaxweynayaasha qaaradda Afrika waa naga intaa. fadlan subscribe kare kanaalka YouTube kan ku leenahay si aad ula socoto wax walba aan soo dhigno. waana ku mahadsan tahay la jaanqaadka Garmaal Tube.